Bismillahi raxmaani raxiim daawada meel walba joogtaan ba kusoo dhawaada bartaan ku leenahay youtube-ka taariikhda maanta oo 25 bishii saddexaad 2022 xaaladda Ukraine oo cirkaas isku sharartay madaxweynaha Ruushka ku dhawaaqay gaaskooda ku gudin doona lacagta dalkooda cidii rabta gaaskooda oo soo ku gudin doona waxa la yiraahdo dollarka daawada la socotaan dalka Ukraine waxyaalaha ugu horeeya Ruushka wax kamid ah qodobka koowaad oo ahaa inay ka talaasuni waayeen inay ku biiraan NATO mid labaad waxa tiraahdo qorsooneed oo cidna ogeyn oo ah in ciidanka Ukraine ama xukuumadda meesha ka jidheeyay naasiin far right group sida loo yaqaan far right-ka kuwaas oo waxa weeye ku saleysan mabaadi'dii iyo fikradihii aaminsan Hitler oo halkaas lagu abuuray waxaa loogu talagalay in maaragtay Ruushka looga hortago waxyaalaha uu go'aan ku qaatay ay kamid yahay Putin inuu qabsado dalka Ukraine inkastoo hadda gacantiisa ku wada dhigin oo weli dagaal qaraar uu ka socdo maanta waxaa la sheegayaa inuu magaalada ku dhigay Mariupol magaalada la yiraahdo dekadale oo duqeyn baan uu ku waday muddo kadib magaaladaas dhulka la simay ciidamada inay sidibaan baa la rabay way diideen laakiin maanta gacanta ku dhigay magaalada gabi ahaanba gacanta ku dhigay waa magaalada ugu badnaayeen ciidanka naasiyiinta ay joogeen ciidamo badan baa lagu qabtay magaaladaas sida doratan aan ku sheegnay warkaan soo dhaafnay oo naasiyiina daawada saa ujeedaan ba dalka Ukraine walaa wasiir walaa madaxweyne walaa ciidan walaa shacab kurtooda naasiyiin bay ahaayeen guryahooda saa ujeedaan ba ay sheegay calanka wadanka sultaan calanka naasiga sultaan calanka Hitler oo kaas ujeedaan ciidanka naasiyiinta marka waxyaalaha ugu waaweyn oo Putin hurdada u diiday waxaa kamid ahayd in naasi uu albaabkiisii soo istaago oo soo kulaalay taasaa dhib ku keentay daawadayaal wararka ugu dambeeyana waa nala socodsiin doonaa xaaladdu ma sahlana reer galbeedka waxay dhaheen haddii uu dagaal nuclear uu Putin qaado asaga unbaa ku guuldareysan doona oo halaag baa u dambeyn doona Ruushka suu sheegay afhayeenka ururka NATO Jens Stoltenberg shirkii NATO ku lahaayeen shalay magaalada Brussels madaxweynihii dowladda Mareykanka asaguna wuxuu joogaa Poland halkaas wuxuu kala kulmay qaxootiga Ukraine iyo ciidanka Mareykanka halka ku sugan oo qaxootiga la tacaalaya dhaqdhaqaaqa iyo Ruushka la socda ciidamo fara badan ayay NATO soo dhoobeen xuduudaas ay la wadaagaan dalka Ukraine saa ogtihiin daawadayaal waan isku burtumanayaa bal xaaladdu meesha ku dambaysa aan aragna insha Allah